سيكي صعب تشارجي جنب تكتي حالة طول محل هذا هوتيل كده حدا أنا بقري واحد أونلاين كعجة شيء وكسوي كريه لكن تشارجي جاي برجع هوتيل كده حتى أنا سوق هذا فاهم كسر ما يسوي لكن ويسرامي أمر لبعض حرجين عفنا قبتين سامران وعفنا قبوا كله waxaa arkay dad badan oo mana fiido soo sameeyay oo mana tayaraya baraad dirisla cabti iyo CK siday isku xideen ama ay halkan noqotay inaan labadii wax sameeyno bara fiido badan oo soo sameeyay jiray waxa ka mid ah heshiiska King CK dirisla cabti dad baa ka naxay miyaa dirisla cabti King CK oo heshiiyay sababta heshiiskooda daawo King CK dirisla cabti oo heshiiyay dirisla cabti King CK Assalamu alaykum dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasto joogtaan waan idin salaamay oo miskiintiina Siam channel ku noo bogtay media waxaan ku leeyahay saacad walba ku tahay waxaan wanaagsan ku soo bir waa muuqaal cusub igu soo bir anoo ku jecel waliba ku jecel maanta nashqad kala u xirtabo maxaa ka bedeli kartaa meesha sidii la rabaa liiskeela saaxiibayaal waxaan leeyahay waxaan idin wada sheeko dheer inkastoo nin geesiya raggeeda dheer yahay haddaan garabka laga qaban guri oodi maayaan lahay okay saaxiibayaal waxaan idin wadaa sababtii ka dambeysay heshiiska Idrisla Cabdi iyo King CK horta waxaa mahadsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo labada soo wiilo Soomaali Ilaahay ka dhaliyay Soomaali kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala heshiisiin waafajiyo Idris Lawanin boqora banaanku ku dhaca wax laga qaban karan maltiin Idris ismoojiya soo yaaca waxaan ku leeyahay Idris waa ku mahadsan tahay qaabka dhiirigelinta oo yacni waxa ka wada qaabka wanaagsan ee Ilaahay ku garansiiyay in aad inta sii geewacdo aad la xiriirto xaaladda dejiso ku midoodaan waa sax markii ninkii meel walba laga soo galay la gubay la gamaariyay naagtii gacan saddexaad iyo gacan afraad iyo gacan shanaad iyo xasid dhabarka ka taagan iyo balaayo dhan saas isugu maleegantay horta hadal wax looga qabo waa CK buuq iyo stress wax looga qabo waa xaalad abuur wax looga qabo waa ma fahanteen laakiin ninka la yiraahdo Idrisla Cabdi maalin loo baahan yahay ayuu yimaaday sharafi karaamuna leeyahay Idrislo waxaan ku leeyahay walaal aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan dhalinyaranimada leh yacni wanaaga leh sharafka leh ee u garab istaagto walaalka inkastoo nin geesiya raggeeda dheer yahay dan garabka laga qaban guri u dimaayay Sayd Cabdullaahi Xasan wuxuu yiri boodada markaan ka jabo boqonta taageeda ragii buuraha igala soo baxay bahalka cawleede ninkii balad fog iga jiray inaan bogsado jeclaa beerka ka ogsooni abaal badan abaal bara abaal burya dheeraada nin waliba kiisa kaan ugu bedeli lahaa beerka ka ogsooni waxaan isleeyahay yacni CK maalin buu ku abaal marka waxaan ku leeyahay Idrisle walaal maasha Allah sida u garatay anaga dhan ku wada faraxnay ninka la yiraahdo CK-na waxaan leeyahay sida Idrisla oo ku soo garab istaagay ilgooniya ku fiiri akta sababtoo ah Idrisle waa shakhsi xilli loo baahan yahay imaade saaxiibada iyo cadawga sometimes qaarna xilli loo baahan yahay imaadan qaarna xilli aan loo baahnayn imaadan isma lahayn waliba waxaa jira dadka kuugu dhawaay waliba dadkii aan islahaa way soo garab istaagi doonaan ayaaba adiga kugu soo kala jeestay moogta way kugu soo wada jeestay markaas oo dhinacyada laga wada saaray laakiin feedback Idrislo bixi marshaalow booshki qorigi ki hebelowgi sabankii madfici hoobiyihii kaarihii جيبتي بلايد اللي سكوري جرلت كديورة ده هلا سو كورستاج شينا تاج وحانو همباليانا هي همباليان لاي هاي ميسي يا رونالدو هديهن أنا هبل أما نقطة أري هبل نو نقو كرت
daaka noqay dhiiqaa lugaha kula jirtaa ilaa adeer gabadha abtiyaa waa orgiga baroorta ka weyn shiina taaj haddaan shiinaab usii gudbaba ya ani ma aqaani ciilkaas meelaa la geli doone marka ninka la yiraahdo Idrisle Cabdi waa nin mas'uul ah oo baneeyo nin weyn Idrisle kama walaal sharaf ikraamo وبلان حمر مركا إماتن إنسا عبادة لغو تمروك عس لغو جوجلو وبحيا لغو ساري هل هليكوبتر أو بحا أنيجو سيها ما بلان قادي درس الحمر دائماتو هل هليكوبتر أو حمر حالنا لغو سوق أبنا برادر والغو كرد عادنا أديك نسار بتاونو لاني مادام أقرب استاكتي رونالديه يوتيوب أذو ميزيا ما شاء الله wiilasheen qurquruxda badan sharaftii karaamada badan de waxaan ku leeyahay update-ka ah kartida badan ninka ugu wanaagsan youtuberada Soomaalida ma dhihi kari lamay waxa waaye ninka ugu shaqada badan ma sha Allah tuuf ili cawri laaw waa jeclaan lahay narodmeeda la noqoto aniga qaab shaqadaada iyo yacni qaabka noloshaada u horumaris aada uga helaan balyo والله ما شاء الله نيو ناكسنا تاي تيم درس لا كميد هاي هدي بجرتو قف سوشيال ميديا اما كو جرتو اما داوده كادا اما كومنتلياده قف كو تاغيره دو جرو وانيغا كو سامسنا سيكين لميداته ولا عدوغينو حجبو عكتا كهوس هان ليهي ميدا كالي waxaan la ilaawi karin ba kaalinta Idrisle Cabdi oo ka soo muuqday sida quruxda badan oo soo garab istaagay walaalkiis ayadoon laga filaneynin oo aaminsanaa xilligaas xifaalda dhanka YouTube-ka inuu kala dhaxeeyay de gobonimadu waa gobonimadii oo qofa Idrisle waa garashadii oo qofa ma sha Allah waa xikmadii oo qofa waa dhiigi iyo maxaan ku yiraahdaay diirimaadkii Soomaalida goobta lagu aqoon jiray marka waxaan ku leeyahay King Idrisle King CK midoobay wacdaraha adduunka waxaan rajeynaa insha Allah in kulmadeenna aabadisaan muuqaalo qurqurux badan oo dadkana dhiirigeliya soo duubtaan laba kasto isqabata maalin in soo fariisan karto kana sheekeysan karto wixii dhacay I believe muuqaalka CK marka daawanayna waxa ka dhex dareemay dadka qalbigoodu nadiifka yahay oo sida tooska codadlaawayaasha ma ka hadlaya kuwa inta boosaneerada ka noqdo marib ku hasiiti kuwa inta nadiifka ka ah qaabka ay u dhaqmaan sibisiya waxa ka helay videoga saasiisaas sida u furfurnaa CK oo qalbigiisa u balqay oo isu kala kiciyay yacni si oo بلا attention oo wax ka dambeeyay salaam cali bari ama khilaaf kala dhaca ama point laga qabta ma dhihin oo fasax wuxuu jire marka goobta noocaasa goobta isma qariso waxaan ku ri laba qofood oo laba kingiya waliba agteeda aniga respectful aan hayo taageeraha doo jiro aniga ku ahay inta kale labiyo kumanaan ee noqonayaan ayaan idin ahay congratulations walaalahayga qurquruxda badan waxaan rajeynayaa insha Allah biinillah inaan ku dayo doono anigana especially ninka la yiraahdo Idrisle Cabdi oo aan keligay socon doono sababtoo ah way adag tahay markii aad soo kacdid cadawyo badan ay yeelanayso oo aan ku qoys qaadan doono ninka la yiraahdo CK family na waa kamid ahay Idrisle family na waa kamid ahay boqortooyaa tihiin walaalayaal xilliga la isu baahan yahay eles helana aad baan ugu farxay haddii aan awoodi doono insha Allah xaflad heshiiskii Idrisle iyo maxaan ku yiraahdaay CK soo sameyn doonaa oo aan u dhigi doono insha Allah aad baa karaami sharaf idinku haya wallahi ninka la yiraahdo Idrisle Cabdi waxaan leeyahay walaal sida Ilaahay ku waafajiyay in aad walaalka la midoodo oo aad farxadii garab istaag u muujido mid lamida ayaan anagana ku muujinayna dana team Idrisle hawaaraan ha noolaadaan hees jeclaadaan meel kasta joogaan wadnahayga